inta ay timi tay jecelyihiin in ka badan anna waan jeclahay iyaguna waa jecelyihiin waxaan aad iyo aad weliba aan ka raali gelinayaa dhammaan intii madashaas ku sugnayd ee xalay isu soo qaban qaabisay ee meesha timi ee meeshu deeq weeday horta 100% apologize baa idinka siinaya tan labaad waxaan rabay aadna waan uga xumaynay dhammaantii soo wada gelin waxaasoo dhanna waa jacayl waa in aan bulshada dadka kale gabadhaha kale inaan dheerahay ayaan isku arkaa sidii aad xalay iigu soo baxdeen wad rabteen arooskayga inaad ka soo qayb gashaan runtiina waa qayb wadnahay kamid ah ayaa waxa idin leedahay waan idin waa calshan wadnahayga ayaa idin dabacsan sidaas quruxda badan aad u soo wada baxdeen dhammaantiina u wada qurux badnaydeen waan idinkaga mahadcelinayaa oo marnaba de xagga qasaar ma taalo waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo oon mahad gaar u celiyo qayb kamid ah dadkii xalay madashaas joogay dadkaas oo ugu horeeyo familkayga oo dadkii de family and friends waliba qaraabadaydi dhammaantood magacan oo soo koobeen familkayga waa familkayga qaraabadii asxaabtii fanaaniintii asxaabta qaaliga aad baan idin salaamayaa ابن آذن سواء أرنبا كلا جيسي بريها كان أنيجا هالكان جاء أنكسيستي سماها أدبايدي سلام يا سلام كدب شاكا يدي هيا بربان يدي هيا أدبأدور تعشين سلامات من كل آفات إدي جيستا بسم الله الرحمن الرحيم أنكم بلابو هذا الكيجا حلي أروسكيجا aniga iyo odagayga Xuseen arooska ugu talagalnaa isla ka dhigno sirteedii sidii ay waxaayeen isida social media laga wado anuga inaad rabtaa inaad dhageystaan soo idin bilaabaya aan ku bilaabo magaca Ilaahay bismillaahir rahmaanir rahiim wax badan ka oran maayo muhiimada aan rabo inaan dhaho waa sidoo aroosku xalay ahaa uu ku bilowday iyo sida aan anigu asan nasteexa ahaan oo aroosadii ahayd aan ka aamisanahay oo aan qabo sidoo ku bilowday si qurux badan bay ahayd sidii loo soo agaasimay family and friends oo garab fiican iga siiyay waligay aan hilmaami doonin still now aan aamisanahay arooskii si qurux badan inuu ku dhamaaday li'aanno dadka qaar ay u maleeyaan inay si khaldan uu ku dhamaaday si khaldan anay ulama dhamaano ummad jecel baa buuxday meesha Soomaali Maxamed intii dibadda iyo dalkaba joogtayba waxay rabeen inay qayb iyo mataqaana marxaanti ka ahaadaan anigu gabar Soomaaliyeed ka soo gabar fanaanadaan ahay bulshada Soomaaliyeed magac baan ku leeyahay waxaanan ogahay inay aad ii jecel yihiin ummadda Soomaaliyeed intaan jecelahay in ka badan ay jecel yihiin inta ii timin tay jecel yihiin in ka badan anna waan jeclahay iyaguna waa ogahay inay jecel yihiin waxaan aad iyo aad waliba aan ka raali gelinayaa dhammaan intii madashaas ku sugnayd ee xalay isu soo qaban qaabisay ee meesha timi ee meeshu deeq weeday horta 100% apologize baa idinka siinaya tan labaad waxaan rabay aadna waan uga xumaynay dhammaantii soo wada gelin waxaasoo dhanna waa jacayl waa in aan bulshada dadka kale gabadhaha kale inaan dheerahay ayaan isku arkaa sidii aad xalay iigu soo baxdeen wad rabteen arooskayga inaad ka soo qayb gashaan runtiina waa qayb wadnahay kamid ah ayaa waxa idin leedahay waan idin waa calshan wadnahayga ayaa idin dabacsan sidaas quruxda badan aad u soo wada baxdeen dhammaantiina u wada qurux badnaydeen waan idinkaga mahadcelinayaa oo marnaba de xagga qasaar ma taalo waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo oon mahad gaar u celiyo qayb kamid ah dadkii xalay madashaas joogay dadkaas oo ugu horeeyo familkayga oo dadkii de family and friends waliba qaraabadaydi dhammaantood magacan oo soo koobeen familkayga waa familkayga qaraabadii asxaabtii fanaaniintii oo intaan soo casumay runtii si sharaf loo qiimo badan mid walba xaadir u soo noqday oo heesa ay ii soo diyaariyeen oo ay ila garab taagnaayeen aad iyo aad iyaguna waa familkayga fanaaniintaas waa familkayga oo fanku isaga walaal ah intii fanaaniin meesha xalay joogtay anoo idin kala qaadaynin qof walba wadnahayga boos buu ku leeyahay sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo intii dibadda ka shaqaysay oo ay ka mid yihiin Kabray wiilkan habarto ahay maxaan ku raahday oo jooga Indonesia
haddaan khalday wadankay raalli aho oo shaqo badan iyo xoog badan ka geystay habar macaan wiilka habartu hay kabraay habar macaan waxaan ku leeyahay thank you so much aad baan ku jeclahay meel aan film baad ka soo baxday runtii waana ogtahay muhiimna maaha inaan sheego waxa qabatay laakiin waad ogtahay qalbigaagu waa ogyahay kayguna waa ogyahay habaryar talamaad waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan fanaaniintii dibadaha ku maqnayd ee heesaha ii soo diyaarisay ay kamid tahay maxaan ku dhahaa maama Sahra Ilays maxaa la yiraahdaa dalmaryare sakiyare allahumma musta'an ilaahay rabbigo inta ilaa way dambigooda iga dhaaf dadayba dambi tahay laakiin qalbiga waa idinka jecel waa idinka ogahay dhammaan fanaaniintii xalay madashaas ku sugnayd oo aanan xabad u kala saaraynin ee dhammaantood xil iska soo saaray inay aniga i farxad geliyaan aniga odaygayga waxaan idin sheegayaa inaan qalbigayga aad daris la tihiin oo aan deeply aan idinka mahad celinayo waxaan kaloo rabaa inaan mahad celiyo family and friends waxaan kaloo ma soo koobi karo ummadii Soomaaliyeed meel walba xalay joogto horta way isku yimaadeen aad baan wili ilaa hadda ku soo celinaya aad baan ugu xumaa meeshiina idin deeqda weyday laakiin insha Allah badan ku dhigaa warbadan ku dhigaa talo badan ku dhigaa anyway waa idin jecelahay iga raali ahaada hadaa idin laaway هاتف ليبان اللهم زد دي هاش dadkii waa isku dhaxal khalday waa isku dhaxalsanahay anyway dhamaantiin walaalahay aad baad mas fanaaniintii reer Norway dhamaantiin Sweden dhamaan family labada dhinacba familkayga odagayga familkiisa dhamaantiin waxa idin leenahay waa idin taaganahay waana idin mahad celinayaa waadna mahadsantihiin I'm very happy waan faraxsanahay as long idinkuna aad la faraxsantihiin I love you guys. Warkiyo koona kombo ku jira. Hal mid baan rabaa midda kale aan rabaa inaan ku darso xitaa dad badan baa waxay walwalayo islaayay gabadha qalbigeeda miyaa wax no siday ay ahayd waa ku qanacsanahay waayo wax walba qadarta Allah ka weyn adu gooni baad u tashanaysaa ilaahayna gooni buu u tashanayaa marka marnaba wax walba sidii ilaahay kuugu talagal hada u dhacdo alxamdulillah ma sharaysto si qurux badan anu waxaan u arkay kaliya ummad Soomaaliyeed oo jecel inay meesha soo buuxsameen oo ay halka yimaadeen oo mid walba rabay inuu marxaanti iyo xaadir ka ahaado walaashood ama fanaanadooda ama gabadhooda oo deema taqaanaa aqal galaysa insha Allah biidnillaahi kariimna mana jeclay ma taqaanaa wax negative oo soo qoraa ama social media ama meel Facebook yar ama aduu aan waqtigayga ku lumiyo ama indhahayga aan waqti ku siiyo inaan ku fiirsado ama ku aqriyo waxa negative ka waxaan jeclaa inaan iska dhaafiyo alxamdulillah rabbil alamin more aan negative dhageysatid more aan waxun aad indhahayga raadiyaan adigana kuma fiicno dambi bay kugu tahay caafimaad ahaana kuma fiican maskixiyan marka muhiimadan ka hadlay waxay tahay hawada aaminina waxa la idin sheegayo علشان waqti hasiinina run wada ah anaga aroos kalaha aroosadii baan ahaa si wax u dhaceen qof kasto meesha joogay haduu runka sheego wuu og yahay hadalkaygana meesha la taaganahay qofan xumaato u qabana ma jirto xumaata meesha ka dhacday oo ahay Soomaalida iyo farabadatay dadkii shicibku farabatay mooyaane wax kale oo dhibaato dhacday maysan jirin social media has marka waxa idin sheegaya waxa laga sheegay علشان wax runtii muhiim ah ama run ah may ahayn marxaantu waxa ugu filan intii joogtay iyo aniga oo ah gabadhii aroosaysi marna gabadhii fanaanada ahayd فناد بنكها ما فناد كم الرصد ديوانا انت صوكو اكاد anyway هذا الكيو كوم بكوشرا وحيد الله ولا وحي نيجاتيفا يا وحي حنبا شيطان بأسوناتي وحي وناقة يا عقلك السليم كا يا متقانا يا شرفتبا ووح بني آدم كالله كويسيو مركا الحمد لله رب العالمين أنو هبي بانا هاي dadkii meesha joogay habibi ahaayeen Soomaalida dadkii shacabka jacaylkooda iyo wanaagooda iyo sharaftooda baa meesha wada deeq weeday aad in ay jecel yihiin baan ogaaday ummadda Soomaaliyeed aad baan idin jecelahay hadda kadibna waa ka soo hadli doonaa arintaas iyo in aan ka soo hadlo ama u mahad celiyo dhammaan shakhsi family and friends
فنانينتي قروح بدن فنانين هديين كاميرمان هديين